iyadoo habeenkii xalay ilaa saaka aroortii hore roobab dadku ay ku diirsadeen ay ka daayeen gudaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa roobabkaasi waxa ay sababeen in fatahaado culus uu sameeyo webiga Shabeelle dhexmara gudaha magaalada Beledweyne in ka badan 22 ruux ayaa ku geeriyooday iyadoona dad inta ka badan lagu laayahay fatahaadii webiga Shabeelle uu ka geystay gudaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan dadka geeriyooday iyo waliba kuwa la laayahay ayaa intooda badan u badan caruur iyo waliba dad waayeel kuwaas oo biyuhu ay ugu soo galeen guryaha ay ka degnaayeen gudaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan biyaha oo ahaa kuwa si xawliyo ku socda ayaa waxa ay guryaha ay ku galayeen si dhaqsi ah isla markaana waxa ay dadku u diideen inay kala baxaan agabyadooda waxa gurmad u sameeyay dadkan maamulka dawladda federaalka Soomaaliya ciidanka Djibouti ee kamid ah ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika AMISOM ee ku sugan gobolka Hiiraan iyo waliba ciidanka militariga Itoobiya kuwaas oo ku deeqay gaadiid kala gidisan oo dadkan gurmad u sameeyay si biyaha looga samata bixiyo مسؤولين كثير سن دولة فدرال كصوماليا يا وحي باقي ودران باش عالم كي يولي بدولة فدرال كصوماليا يا هذا عالمية يجون وجب باقي إن دت كان جرم الله سميه سيايا قدوميها قبل كيران أهنا قدومية كحجين كأمان كقبل كا أحمد عثمان عبد الله إنجو وربعين تقولها اللي قاب دت كان لجدت جرين يجي أيا وحي وجب باقي دولة فدرال كصوماليا يولي بهذا عالمية سيبنا ما يقدروا إننا نتكلم على واحد السوق كله كلام كستو إلى روب ونقول لهم هاي هتروى مصيبة ده هاي تذكر هذه إلى علي بعده الغدي في دبي يروح بالغدي إلا سيال كما تروح بداية وحاس خمسة دي ويه حردي المشهد وصلوا بدهم شيء إلا لباتر يشرب حي مريسا على أن هليكوبتر هذا حي هذا هو مسلم هليكوبتر إلى دولة الصومالية أود بيولادين واحد حكمته دونكم قيادات سنودرينا مسيبات الكريرة هذا كواب ستي وبريود وصل قشي ورنت واحد درسوا كل كرمه si kastaba ha ahaatee dadka ku dhaqan gudaha magaalada Beledweyne ee saameynta ballaaran ay ku yeelatay abiyabaxadii ka dhacday gudaha magaalada ayaa waxay qaarkood la hadleen telefishinka Royal iyagoona ka waramaya dhibaatooyinkii ka soo gaaray fatahaada webiga Shabeelle uu ka sameeyay gudaha degmada Beledweyne iyo dad dunyada wax u nool lama arko wixii nool la adeer nafay u qabtay wax Ilaahay abuurtay oo wax Ilaahay abuurtay ka soo samata baxay meesha Soomaaliya gurmad degdeg ah inta umadu waa karta maxaa dhibaatooyin oo qasaaraha oo adigu indhaha ku aragtay waayeel iyo dad ilmaha oo saqiiray oo anagu qaar biyaha aan ka soo qabtay oo ilaa ay xalay cabanayo oo hadda xoolo iyo xataa dadka qaadeen baa jiro isku soo wada duubo biyahan ayaa waxay sanaheen kuwa dadku ay hore uga baaraan degeen iyadoona markii hore aysan ka jirin cabsi xoogan marka laga reebo fiidnimadii xalay oo roob mayigaan iyo ay ka bilowdeen gudaha magaalada Beledweyne kuwaas oo daayay aroortii hore ee saakay Cabdirasaaq Maxamed Cabdullaahi Al Cadaala telefishinka caalamiga ee Royal Beledweyne